arrimahaas daraad bay dhaceen aad baan ula socdaa arrimahan duunduleela waaye xiriiro badanna waa la sameeyey dadkii shacabkii aan ku matalayay dowlad goboleedka hirshabeelle khaasatan deegaanka degmada jalalabsi xiriiro badan dadkina waa la sameeyey maamulkina waa la sameeyey qoladii jabuuti oo meesha haysatina waa la sameeyey ilaa iyo adiga habeen laba habeen caawa saddex dadka ay jeedinayaan waxayna ku xiran yihiin container sababta loo xiray dadkaasi min la sheegay sababta loo xiray dadka markaan weydiiyey maalin dhaweyd ayaa dhacdo ka dhacday xoogaa degmooyinka ugu degan ay ka mid tahay dhibaatadooda yar tahay ilaahay baa badbaadiyey daraas baa waxyar markay dhaceen ciidamadii jabuuti iyo howlgalay sameeyeen howlgalkii markay sameeyeen ay dhacayn waxay la kulmeen dad oo iska roob doonaayo oo beerahooda joogo oo qur-aan meesha ku akrisanaayo oo culumo iyo caamo leh tirada dadka la xiray waa imisa wallaahi dadku way badan yihiin ilaa shan xitaa dad jidka soo maraya xitaa way qabteen hadda tirada si rasmi umaayo laakiin dadka waa xoogaa waa dad xadidan adiga tobaneeyo gaarayo sida aniga aan hadda war ku ah adaad la xiriirteen saraakiisha ciidamada jabuuti ee ku sugan jalalaqsi maxay idinku sheegeen sababta loo xiray dadkan shacabka oo sheegtay inay yihiin dad beeraley ah wallaahi waa la hadlay xiriir horta marka hore anaga dowlad goboleedka hirshabeelle nahay maamulka meesha aan u wakiilanaa la hadlay waqti hore kuma aanan marka hore ayaga laba xiriir lamaana samaynin waxaan xiriir la sameeyey qoladii degmada dowlad goboleedka wakiilka ugu ahayd gudoomiyaashii iyo ku-xigeenadoodii inkastoo gudoomiyihii koowaad maqan yahay oo xaalad shaqo galadeeda ugu maqan yahay gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo gudoomiye ku-xigeenkii siyaasadda iyo gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada intaba waa la hadlay arrintaasna dadka adinkaa kala yaqaano dadkaan meesha way degan yihiin ciidamada jabuuti oo hadda dadka xirxirayana ciidamo horey u jooga maana ciidamo mar dhow bedel ku yimaaday waayo la dhaqanka dadka xitaama aad uma fahamsano ciidamadii hore jabuuti annagoo xildhibaano iyo saraakiisha iyo wax walba iyo deegaanka waa la shaqayn jireen xiriirayna la samayn jireen koleer baliibel baayaa haystay dumarna ku-xigeen uu ahaa hadda goor xitaa dhacdooyin badan oo xitaa dad oo deegaanka ay ku dhinteen aan la xalinay dhibaatooyin badan oo ciidamadaas ay geysteen fal mar haddii meesha loo joogo mar walba fal waa u dhacaa laakiin waa laga daba tagaa laakiin dadka iyo deegaanka qadarin iyo tixgelin ay ku haysteen hadda qolyahan aniga maamulka xitaa markaan ka wareegtay sargaalkan xoogaa nin aad ugu dhuunduleela dadkii dhexdoodii maahan dadkana isku dembi maahan qof dembi lehna anaga daydi meena uga daba joogno sharwado qof anaga qof aan u daba joogayna ma laha laakiin dadka deegaanka degan dadka muctarifka iyo dadkii lakala yaqaana iyo dadka dhibaato geysta sharwadayaasha iyo dadka kale waa lakala yaqaanaa maamulka meesha joogana wuxuu wakiil ugu yahay dadkii inuu kala tilmaamo oo classification ku sameeyo tilmaamo oo ugu sokoyo jabuuti hadday inta baxdo cid kasta iska soo xirato gumaad waayo nimankii oo marka wax dhibaateynayo waxay dhaamaan male haddii dadkiiba inta warsadaan aysan warsanaynin oo meeshay rabaan ay ku xiraayaan hadduu nabadoon leeyahay hadduu shiikh leeyahay hadduu waayeel yahay hadduu sheeg yahay hadduu caamo yahay xoogaa deegaanka dadka anaga aan kumatalayn xoogaa wax gumaysiga u arkeen wax oo haddana anaga dacwadii iyo riboodkii iyo dadkii maadaama ah matala aniga ii soo gudbiyeen daayadoodii iyo afkooda aan ku hadlaa cid dadkinan anagu gaar ahaan u dooni mayno oo dambi geysatay qolyahaasna qolo nabaddiid waayo cid u baahanna ma lahan cid alla ciddii aragta inay meeshay aragta ku daba kacdo annagaa diyaar u ah oo xilli walba u taagan marka laakiin dadkii in lakala saaro dadkii ahlu wanaagga u saaxiib kale oo deegaanka u saaxiibka weligood xitaa waxba noqonin oo lagu tumin oo deegaankii laga yaqaano oo culumihii mashaaikhla in laiska wato laiska xirto lakala aqoon ihaano waaye mana ka yeelayna ciidamada jabuuti mana ka yeeli doono awal haddaan heel walaal dhihi jirna hadday maanta dhegaya naga cutulaystaan annagana waa ka cutulaysanaynaa dacwona waa ka qoraynaa waa ka fidinaynaa meel walbaan dacwadoodana gaarsiinaynaa gumaad ma ka yeelayno mana ka yeeli doono culumihii caamuu leeyahay degmada dadka inay warsadaan oo ay tixgelin siiyaan oo priority siiyaan oo u yeeraano oo dadka ay kala tashadaan qof dambiilaha cid ugu dabatagayso oo rabtoo doonaysa malaane inay dadki tixgelintoodii siiyaan haddaan ka weyn anagana tixgelin yaala siinaa leen saraakiisha amisom gaar ahaan kuwa jabuuti oo jalalaqsi ku sugan waxay ku joogaan deegaanada hirshabeelle ogolaasho dhanka hirshabeelle ah waxayna leeyihiin talis kala duwan taliska ugu sarreeya ee amisom xiriir haddaad la samaysay maxay idinku macneeyaan shabaab
aniga talis guud weli lamaana samaynin laakiin korneel xaamud alqaayo bilo burta joogo oo xali dhacdadan wax ku ogaay aan u sheegnay way jirtaa oo beri kulley korneelka waa la hadal nagu yidhaahdeen anaga korneelkan weli dadka deegaanka islama shaqayn guddoomiyaasha qaarkoodna afkeedu ay iga sheegeen ninkaan nin lala shaqayn kara inuusan ahayn oo nin madax adag yahay marka annaga gumaysi ma rabno gumaysi ma doonayno dadka iyo deegaanka ehel iyo walaalnimo iyo inay u arxamaan ay ugu yimaadaan inay gumaadaan uguma imaanin dadka iyo deegaanka dadkii u dhashaa joogo wakiilna ka ah dadkii halala xisaabtama iyagana halala xisaabtama dadkiina hala xisaabtamaano dadka u dhexeeyo maamulka oo loo wakiishana ha u maraano meesha ciidan walaalow dhibaatada jirta kale waxay tahay ciidan soomaaliya oo meesha inta badan oo ciidamadii militariga oo lagala xiriiro oo wixii soo qabtaana ma joogaano meeshaas waxaa jooga oo keliya ayagana 11 saac ay ku xaroodaan magaalada go'doon waaye ha ahaatee go'doonkeeda guddoomiyaasha degmooyinka ilaalo iiga ay wataan iyo meel ay ku hoydaan ay haystaan ayagana meeshooday galaan ummadda shacabkana meesha meel xiran waaye meel furan maahan dhinac walba laga tegaya oo cadowka tegayaa waaye waxaa tahay xildhibaan laga soo doorto jalalaqsi dadka la xirana waa dadka aad ku matalaysay hirshabeelle maxaa idii qorshaysan haddii ay soo dayn waayaan ciidamada dadkan annaga waxaa noo qorshaysan haddii ay soo dayn waayaan oo ay maamulka kala xaajow waayaan heer state heer degmo iyo heer gobol iyo heer state ay kala xaajow waayaan annaga waan dacweynaynaa hadduu ilaahay idmo waan dacweynaynaa mana ka yeeli doono hadda ka horay dhiig ay ummadaas ka qabaan annaga ayadoo dawladda ay cidna nagala qaybgelnaan annaga maslaxadeena inta galnaa ilaa korneel dubbad nala socdaan 4 cawo meeshaas u jiisay dhammayntooda dad oo ayaga checkpoint dad kuwayaan diyaalo dad deegaanka ay ku dhibaateeyeen oo ku dileen oo naftooda ku waayay annaga walaalnimo iyo ehelnimo iyo soomaalinimo inaan wada nahaan annaga iyo dadka deegaankaas wakiilkana aan wax ula xalinayna ayadoo cidna kale aan u mar dhibaatadaas gelsano cid walba ogtoo amisom ogtoo dad ku dileen oo ku naf waayeen annaga dadkeenina micnaha dhigtoodii aan dhahna walaalihiina waaye haloo kaadiyo waxaan waalidfahmaa inaan dhahna ayagana ay dadku gumaanaan waxaan ka helayna ma laha ugu dambayntii baaqa aad diraysa muxuu yahay marka xildhibaan baaqa aan diraa waxaa waaye dadka xeran aan dembiga lahayn si shuruud la-aan in lagu sii dayo waxaa lagu xiran oo dembiga ay leeyihiin laana maamulka inay ku wareejiyaan